السلام عليكم دمان خيارات الصومال مeel kastoo joogtiin soo dhawaada channelka daawanaysa waa Nuurdiin official please tan ku cusubtaa subscribe ku caawi siina share kare barnaamijkan maanta waxaan ka hadli doonaa odo 70 jir oo dhagax kula dagaalamay Yuhuud kula dagaalamay ma sha Allah odaga Xaaji Saciid baa leeyahay marka nala daawado wax yar clipkan yar oo aad iyo aad soo jiitay ma sha Allah waxaa toddobaadkan baraha bulshada ay ku kulanto ee Carabta gaar ahaan kuwa Falastiin qabsaday muuqaal la yaab leh oo si lama filaan ah uga soo dhex muuqday odayda oo reer Falastiin ah oo lagu magacaabo Xaaji Saciid Carami kaasi oo dhalinyarada magaalada Ramallah kala qayb galay weerar halyeennimo oo ay uga hortagayaan ciidamada gumaysiga Israa'iil ee xoogga ku haysta dhulka barakaysan ee Qudus weerarkan oo ka dhacay magaalada Diyaar Jariir ee waqooyiga magaalada Ramallah ayaa laga arki karaa Xaaji Saciid iyo dhalinyarada oo adeegsanaya waxa ay Soomaalidu u taqaan warafka iyo farganka kuwaasi ay ku tuurayaan ciidamada Yuhuudda muuqaalkan ayaa sidoo kale laga dhaxarki karaa ciidamada Israa'iil oo saaran meelo buura oo dhagaxaan u badan kuwaasi oo iyaguna rasaas nool uga soo jawaabaya dhagaxaantii lagu soo tuuray muuqaalka toddobaadkan aad iyo aad baraha bulshada u qabsaday muuqaalkan wuxuu ka turjumayaa dagaalada Falastiin iyo u dhaxay Israa'iil oo ay ku doonayaan xuquuqdooda ma sha Allah odagan 70 jirka wuxuu sheegay calashan oo markii muuqaalkii baraha bulshada ku baahay kadib la wareystay wuxuu yiri علشان نولشة كوي هذا والحمد لله. wax laga weydiiyay dareenkiisa Xaaji Saciid oo ah odaygan daada ay ciidamada Israa'iil dhagaxanta uga hortagay waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in gumaystuhu gacantiisa ugu caanamaalay isla markaasna uu jeclaan lahaa in naftiisa uu ku waayo isagoo la dagaalamay ciidamada gumaysiga Yuhuudda. احنا الشعور الانسان لا يوصف وهو يقاوم وثابت على ارضه ويقاوم الاحتلال. dareenka qofka bini'aadamka ma aha mid la tilmaami karo isagoo ka hortagay gumaystaha dareenkaasina waa mid ay ka wadisan yihiin midkeena yar iyo midkeena weyn waan ka hortagaynaa gumaystaha inagoo isku geynayna wixii awoodeen oo hambaleen aad iyo aad oo hambaleen dhamaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan hiil iyo hoo waa la garab taagana ma sha Allah hiil iyo hoo waa la garab taagana